السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة كريم، جمعة مبارك. ميلو بادونك جوكتين انت إله ونحرس. انت دمتنا، انت داوعنا إلهي عافية، انت حنوسا إلهي عافية ما دقدق حسيو، انت أموره مراد لهنا إلهي وحي جعلين حسيو وخيره. كسر هذا وركي لو قضوا حروين إنها القضوا كواد إسرائيل وحي بربرسي أفرتن حرمود إليهن حزب الله كونفورت لبنان. ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay maanta oo Jimcaha inay sii wadayaan weerarada ay ku hayaan Xisbullah ee koonfurta Lubnaan, iyagoo burburiyay in ka badan 40 xarumood 24 saac ee la soo dhaafay. War saxaafadeed ay soo saareen ku sheegeen in goobaha la beegsaday ay ka mid ahaayeen xarumo hoggaan ay ku sugnaayeen dhismayaal military iyo kaabayaal kale oo kasii ay lahayd. ciidamada Israa'iil waxay sidoo kale sheegeen in duuliye lahayn diyaarado aan duuliye lahayn oo ay leeyihiin Xisbullah. mid ka mid ah diyaaradahaasi ay la sheegay inay ku gubatay xadka, taas oo sababtay in qaylo dhaan lagu maqlay rabsho waqooyiga Israa'iil. Rosh Hanika ee waqooyiga Israa'iil. saddex kale oo drones ah ayaa lagu qabtay hawada koonfurta Lubnaan ka hor inta aysan gelin hawada Israa'iil. waxaa kale ay sheegeen inay rideen gantaalo kale oo lagu beegsanayo droonka kale oo lagu shakisan yahay, balse natiijada weli la sugayaa. ciidamada Israa'iil waxay carabka ku adkeeyeen inay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah khatarta ay ku sheegeen ay ku wajahaan shacabka iyo ciidamadooda, iyagoo raacay amarada hoggaanka siyaasadeed. qodobka labaad, Iran Pakistan ayaa sii ahaanaysa dhexdhexaadiyaha wadahadallada Mareykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa xaqiijisay in Pakistan ay sii ahaan doonto dhexdhexaadiyaha rasmiga ah ee wadahadallada labada u dhexeeya Iran iyo Mareykanka. afhayeenka wasaaradda u hadlay Ismaaciil Bakhaya ayaa sheegay in aanay macquul ahayn in la filayo natiijooyin degdeg ah, isagoo tilmaamay in Tehran ay doonayso waddo lagu xaqiijin karo khataraha dagaal ay buuxda u dhammayso. warbixinta oo daabacday The Wall Street Journal ayaa sheegtay in Iran ay la kulmayso dhibaatooyin ku saabsan jebinta xayiraadda Mareykanka ee dekedaha, taas oo wiiqaysay shaki qarsooday ahayd ay ku adeegsan jirtay dhoofinta shidaalka. warbixinta waxay intaasi ku dartay in maraakiibta shidaalka aysan awoodeynin inay ka gudbaan go'doonka ay saareen maraakiibta dagaal uu Mareykanka ilaa heerka badweynta Hindiya, taasoo beddelkeeda Iran waxay bilowday inay shidaal dhulka usii mariso dhanka Shiinaha, isla markaana ay cutub ka dejiso Mareykanka qafaasho iyo Pakistan. xiisadda u dhexeysa Washington iyo Tehran ayaa weli taagan, inkastoo xabad joojin la gaaray, iyadoo sidoo kale uu jirto go'doon badeed oo ka socda marinka Hormuz. meelo muhiim u ah
gaadiidka tamarta caalamka. Dhanka kale, Donald Trump ayaa sheegay in Iiraan ay qaadan karta sanado si ay dib ugu kabato, isagoo ku andacooday in cunaqabateynta inta si buuxda u shaqeynayso. Hogaamiyaha sare ee Iiraan Mujtaba Khomeini ayaa isna sheegay in Mareykanka la kulmay guuldarro ceeb ah, halka madaxweynaha Mossad Pezeshkian uu ku tilmaamay go'doonka badeed mid la mid ah sii wadida dagaalka. walaal waxaan rabay labadaas qodob inaan la soo socodsiiyo. Jimco kariim, wixii kusoo kordhana waa arkaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.